بسم الله in badan oo bulshadeena ka mid ah ayaa inta badan waxay ka cabanayaan wax la yiraahdo laabjeex ama bogga uu ku olola bogga uu magarasada aad ka dareento magarasada olol bogga uu ku gubanaya su'aasha ayaa maanta ka jawaabi doonaa barnaamijka fikirka videoga maanta wuxuu kaga jawaabi doonaa waa maxay wax la yiraahdo gastroesophageal reflux disease waxaa loo soo geebaa gaab af soomaaliya haddii loo bedelo waxa weeyaan waxa la yidhahdaa laabjeex qofka bogga olasha bog olol qofka uu dareema bogga oo qofka gubanaya wax mooda inuu gubanayo moodayo ayuu dareemaa waxaan ka jawaabi doonaa waa maxay laabjeex sideese loo daweeyaa astaamaha iyo calaamaha lagu gartana waa maxay haddii aad barnaamijkan ama channelkan ku cusub tahay kobci fikirkaaga haddaad ku cusubtaa janalkan oo aad doonayso inaad la socoto barnaamijyada ka socda kobci fikirkaaga weliba adigoo doonaya inaad fikirkaaga wacyigaaga iyo garaadkaaga inaad kobciso waxaad u baahan tahay inaad janalkan subscribe garayso haddii aad su'aal haysana waxaad igu soo weydiin kartaa facebook pagekayga oo kobci fikirkaaga waa maxay laabjeex waa maxay bog olol waxaa ogsoonnaa inta badan ama waxaa la yidhahdaa esophagus waxa weeyaan hunguriga iyo caloosha tubayar oo isku xigta waa tubayar waa tubo waxay dhuunta ku xirtaa caloosha ay ku xirtaa markaa wax cunto cuntada waxay maraysaa tubada oo waxaa la yidhahdaa esophagus ayaa la yidhahdaa dabeetana cuntadii waxay u dhaadhacaysaa caloosha ay u dhaadhacaysaa dabeetana xagga ay mindhicirada kaga sii gudbaysaan marka esophagus ama tubadan yar waxay leedahay wax la yiraahdo caloosha meesha ay kaga xiranto ama caloosha meesha ugu dhow ay kaga xiranto ayaa waxa la yiraahdaa lower esophageal sphincter ayaa la yiraahdaa waxa weeyaan waa sida wax muruq oo yar oo kaleeto waxay xiraysaa qofka mar walba uu cunto cuno ayaa way xiraysaa magarasa si aynan caloosha iyo aashitada iyo waxa ku dhex jira aynan kor soo aadin ee dib ugu soo noqon ka ayaa xiraya magarasa adin inta baa qofka markuu laabjeexayo ama laabjeex ku dhaco waxaa dabca lower esophageal sphincterka ayaa dabcaya meeshii loogu talagalay inay caloosha xiranto ay xirto esophagus meesha ugu hooseysa caloosha kaga xirma inay xiranto ayaanan xirmaynin waxbaa gaara dhaawaca weeyaan sidii loogu talagalay uma xirmayso marka calooshii iyo aashitadii iyo gudaha wixii ku dhex jiray waxay si fudud ugu soo noqonayaan korkor bay soo aadayaan magarasa esophagus ay tubadaaba kor ugu soo noqonayaan calooshii wixii ku jiray haddaba waa maxay astaamaha ama calaamadaha lagu garto calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah waxaad dareemaysaa laabta uu ku olosha laab olol ayaad dareemaysaa bogga oo ku gubta ayaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa marar qaar bogga oo ku xanuuna marar qaar bogga oo ku xanuuna ayaad dareemaysaa waxaa la moodaa margaraysa mararka qaar inuu wadnaha ku xanuunayo laakiin bogga ayaa ku xanuunaya calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in magarasta acid regurgitation in acidkii caloosha uu kor u soo aado uu dib u soo noqdo magarasa halka uu hoos ka aadi lahaa inuu kor soo noqdo calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah qofku magarasa dee ama afkiisa iyo mararka qaar uu soo ura ayaa magarasa calaamadaha ka mid ah calaamadaha ka mid ah waxaa ka mid ah qofku magarasa dee markuu wax cunaya xanuun dareemaya ama markuu wax laqaya xanuun dareemaya dysphagia odinophagia la yiraahdaa englishka haddaba sidoo kale waxyaalaha waxaan hore u ilaabay waxyaalaha koosgareeya waxaan niri lower esophageal sphincterka oo magarasa dabca ama aanan xirmin sida lagu talagal u xirmin sidoo kale waxaa koosgareeya waxa la yiraahdo abdomen pressureka oo ku bata sida tusaale haweeneyda markay uur leedahay waxaa ogsoonaya ilmagalaanka inuu weynaanayo uu magarasa fetuskan ama uurjiiftan caloosha ku jirta magarasa inuu weynaanayo dabeetana markaa wuxuu pressure gelinayaa ama kor u riixayaa xubnihii kaleeto waxaa ka mid ah xubnaha uu riixayo waxaa ka mid ah pressure ku kordhinaya waxaa ka mid ah calooshii
caloosha marka waxay samaynaysaa iyadan wixii ku jiray ayaa waxay usii gudbaysaa tubadii esophagus kor bay usii gudbaysaa. That's why inta badan haweeneyda markay uurka leedahay uu laabjeexa ina u hayaan. Sidoo kaleeto waxa pressureka kordhinaya oo kamid ah magarasa laabjeexa keena waxa kamid ah qofku aad u buuran sababtoo inter abdominal pressureka cadaadiska magarasa xaggan ayaa kordhaya magarasa yani. Okay, haddaba su'aasha ama ka jawaaban waxay tahay sidee baa loo daaweeyaa? Waxaa loo daaweeyaa haddayna problem dhibaato kale jira daawada ugu horeysa waxa loo isticmaalaa waxa la yiraahdo PPI. PPI waxa loo soo gaabiyaa waa proton pump inhibitor. PPI waxay sameynaysaa ay kansalaysaa ama u diidaysaa calooshii inay soo saarto acidka. Aashitada ee caloosha normal ay soo saarto ay ka qayb qaata cuntadii dheefshiidka ka qayb qaata ayay joojinaysaa. dabeetana calooshii markay acidkeedii uu yaraanayaa. PPI marka waxaa kamid ah tusaale waxa kamid inta badan aan isticmaalno waxa kamid omeprazole ayaa kamid ah omeprazole baa kamid ah. Sidoo kale qofku wuxuu isticmaali karayaa yani daawada la yiraahdo H2 receptor antagonist ayaa la yiraahdaa. tusaale ahaan daawada waxaa kamid ah waxa la yiraahdaa ranitidine ayaa kamid ah magarasa ama cimetidine baa kamid ah daawooyinka isticmaali karaya. daawada marka waxay sameynaysaa aashitadii magarasa caloosh ay soo saari jirtay acidkii ay yaranaysaa. sidoo kale waxa u baahan tahay noloshaada inaad bedesho. waxa u baahan tahay dad buurnidaada inaad yarayso, miisaankaaga inaad yarayso. waxaad u baahan tahay cuntooyinkii magarasa marka aad cunto cunayso inaadan cunin cunto aad u fara badan sababtoo caloosha markii aad buuxiso yani awalba magarasa dee laabjeex ku hayay meeshii dee xiraysan aynan xirmaynin cuntadii ina korso aad laga yaabo magarasa ul inaad dareento aashitadii inaad dareento. especially marka aad seexanaysana 3 saac 4 saac ka hor cunto cun. marka aad seexanaysana waxaad isticmaashaa barkin yara qortaada yara soo dheeray magarasa barkin yara saraysa isticmaal si aanan yani saa u seexano dee wixii aynan kusoo rogman. sidoo kale waxaa u baahan tahay cuntooyinka dhibka kuu keenaya ama kicin karaya magarasa dee sida basbaaska iyo cuntooyinka aadka xawaashka u baahan tahay inaad iska yarayso. waxaan rajaynayaa su-aashiina ka jawaabay. haddii aad su-aalahaasi waa soo weydiin kartaa. haddii aad kanaalkan ka cusubtaa mar labaad waxa u baahan tahay inaad subscribe garayso. sidoo kale haddii aad leedahay yani waxba ka faa'iidaya asxaabtaada waad la wadaagi karaysaa. yani waxaa istaagi doona halkaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.